meeshan dowlad Kenya dhahan ku dhex jirnaa dowladdan waa inay wax naga dhahdaa waddadan dowladda Kenya inay wax ka dhahdo oo halkeeda ay keento baa loo baahan yahay waa waddadan hadda 3 bilood ka hor waddada la hagaajiyey sidii la sheegayo wixii la hagaajiyey aaway meel inta carar luushi waa la hagaajiyey meel dhihi so unfair marada biyaha neeto damska oo kor laga soo fakinayo oo la ogsoon yahay xalba u waysay dowladda Kenya national government aan ka hadlaya ila shaqa ayaga iska leh halkii wuxuu noqon lahaa in biyahan maarta meel lagu duwi karo markuu roobka u bato in loo helo ma aha in markasta uu roob da'a in biyihiina lagu soo fakiyo oo marka anaga sidan aan u rafaadno oo dadkeena ay ku dhammaadaan oo maarta beeraheen ay ku baaba'aan dhammaan dadkii reerarkii walaalaha ahaa cidihii laga dhintay oo hubsaday in maarta dadkoodii maarta ay dhinteen horta u tacsiinaya allah u naxariisto inta dhimatay kuwo kale oo badanna way maqan yihiin caruurtii waa la'yahay ama dadkii waa la'yahay ayagana waxaan leenahay ilaahay maartay ha soo aruuriyo hadday nabad yihiin haddii maarta toodii ay gashan allah u naxariisto ayagana طبعا waxaan dhacay musiibo weyn weeyaan oo aan caadi ahayn musiibo run ahaantii inkastoo hadda musiibada kolley qadar buu ku dhacaa laakiin musiibo annaga isku keenna weeyaan maxaa yeelay number 1 horta biyahan hadda sidan maartay hadda meeshan aan arkayno oo welibana qaybtii soo sokaysa ahayd oo biyaheeda ay yar yihiin baa xooggaas ka shanqara ka yeelahaya marka meeshaas kore oo biyaha ay aad iyo aad u ballaaran yihiin in dadka ay u soo bareeraan oo dhahaan waan gudbaynaa khalad weeyaan dadka waxaa weeye waa in maskaxda la isticmaalaa in la sabray ahayd oo sabar la muujiyo oo bal waxoogaa la iska rafaado intii maaragtay loo bareeri lahaa biyaha socdaan laakiin ummaddeenna sabar ma leh degdeg baana laga abuuray number 2 dad mujrimiin ah oo raba inay ka faa'iidaystaan xilligan oo kale oo dadka maaragtay ay durufaysan yihiin baa waxaan yeeto ayagana dembigan qayb weyn ka qaatay nin aan garanaynin wuxuu yahay baa soo orday 2 boot oo sakaraad ah buu meelaha laamo ka soo qaatay sidii la sheegahayo license la'aan waxba aan saarnayn wixii dadka maaragtay lagu difaacayo jiray aan saarnayn markaasuu bootkii buu soo buuxiyey dadkii ka soo buuxiyey markaas boot buuxdo baa haddana xoog uu ku dhex mariyey biyo socdaan oo ayaga xoog ku socdaan marka waxaa weeye waa reckless waa macnaha waa nin aan bini aadamada ka baxsan weeyaan oo khaa'in ah oo dila ah weeyaan maxaa ninka aminkan duruuf yani lagu jiro oo weliba la ii sheegay inuu yani halka tripka ahba qofka uu ka qaadaye maxaa dhahay 1,500 macnaha waa nin u soo dhigtay inuu shaqo uu ka helo meesha uu ka fara qabsado 2 maalin ama 3 maalin oo dhibaatada ay taagan tahay waa mujrim oo rabo inuu ka faa'iidaysto ummadda waqtigan duruufta lagu jiro haddaba kaasaas waxaasu sameeyey laysan muusan qabin boodka waxaa la rabaa boodka horta inaan dadka aan laga badinin uu ka badiyey laysan ma qabo waa dambi labaad boodka waxaa raba in maarata dadka wadaya inay yihiin dad maarata khibrad u leh maarata oo maarata oo experience u qabaan ma leh maarata experience ma dadka maarata baashooda experience maysan qabin boodka wax saarna oo safety jackets iyo wax maartay midna ma jirin marka haddana maartay speed iyo xoog asagoo ilaahay ka gaarsii soo noqo kuwa kala qaad marka ninka horta waa mujrim raqam 1 waa nin dhaalim ah horta ninkaas ila raadiyay weeyaan nimankanna waan u sheegay waxaana ninka oo aan la qabaninba oo aan la soo qabanin khaa'inkaas wax maarta horta suurgeli ma jiraba marka horta taas intaasaan ooga baxaya midda labaad oo aan rabo inaan sheego waxaa weeyaan anaga hadda run ahaanta haddaan nahay madaxda dadka tabcan annagaa nala soo aadaya laakiin meeshan dowlad Kenya dhahan ku dhex jirnaa dowladdan waa inay wax naga dhahdaa waddadan dowladda Kenya inay wax ka dhahdo oo halkeeda ay keento baa loo baahan yahay waa waddadan hadda 3 bilood ka hor waddada la hagaajiyey sidii la sheegayo wixii la hagaajiyey aaway meel inta carar luushi waa la hagaajiyey meel dhihi so unfair midda labaad dowladda biyaha neeto damska oo kor laga soo fakinayo oo la ogsoon yahay xalba u waysay dowladda Kenya national government aan ka hadlaya ila shaqa ayaga iska leh halkii wuxuu noqon lahaa in biyahan maarta meel lagu duwi karo
markuu roobka u bato in loo helo ma aha in markasta uu roob da'a in biyihiina lagu soo fakiyo oo marka anaga sidan aan u rafaadno oo dadkeena ay ku dhammaadaan oo maaragtay beeraheen ay ku baaba'aan marka meeshaas war weyn ma nagala jiraa waa isku noqonaynaa kolley waxaan intaa ka badan wax maaragtay loo gegsan kara ma aha ama waa inaan ahaanaa waddan maaragtay run ahaantii iska warqabo oo naga warqabi karo oo sidan maaragtay noo dhaami karo hadda waa ka wax socda ma leh beecsharo ma leh safar ma leh waa la kala go'ay haddana waxaa noo ziyaada dadkeena meesha inay ku dhammaadaanba marka ha wax gurmadna hadda maanta kale waxaa la rabay in meeshan ay noqoto rescue operation oo dad badan askartiyo KDF diyaarada la keeno oo wax annaga tabartaa ma hayno danahay county waxyaabihii ayaga shaqolkooda ahaa ma qabsan hayaan marka taa hadda waa iska baab kale markaan ka hadli doonnaa marka horta mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay dadkii walaalaha maarata ee laga dhintay maarata waa u tacsiyeynaynaa ilahay ha u naxariistaan le inta rabata insha allahu tacaala